habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin afar toddobaad kadib weerarkii Nairobi ee 22 qof lagu dilay BBC-da ayaa samaysay muuqaal lagu jilayo sidii wax u dhaceen weerarkaasi 19 saac qaatay warbixin dheer ah ayaanu idinkaga haynaa iyo waliba sidii weerarka uu dhacay qodobada kale caawan waxa kamid ah madaxweyne Nicolas Maduro ayaa ku eedeeyay Donald Trump inuu yahay xag jir cadaan ah hogaamiyaha Venezuela ayaa wareysi gaar ah siiyay BBC-da waxay mashquul ku yihiin shaqadooda hadda si dhibaato culus ay wajahayaan cilmibaaris cusub ayaa ka digaysa in dhaqdhaqaaqa aadanaha uu sababo dabargo'a ku yimaada cayayaanka kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka afar toddobaad ka hor maanta oo kale 22 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dhismaha ay ku yaalaan mid kamid ah hoteelada ugu qaalisan Nairobi iyo waliba xafiisyo caasimadda wadankaasi Kenya weerarku waxa uu socday 19 saacadood laakiin waqtigaasi gudihiisa maxaa dhacay iyadoo la isticmaalayo qaabka 3D-ga la yiraahdo sidoo kalena la wareysanayo dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa dib loo sameeyay dhacdooyinkii weerarkaasi waa weerar argagixiso waa qarax rasaas badan ayaa dhacaysa waa laba nin oo hubaysan mid koofiyad ayuu xiran yahay waxna way tooganayaan dibadda ayay ka yimaadeen rasaas ayay dadka ku fureen xaggay wax ka dhacayaan dadku way cabsanayaan markii labaad dadku way yaaceen argagax jahwareer waa bilowgii weerar lagu qaaday caasimadda Kenya ee Nairobi 19 saacadood ayay ahaan doontaa marka uu madaxweynuhu ku dhawaaqi doono in 22 qof qudha lagaga jaray hoteelo qaaliya iyo xafiisyo laakiin maxaa dhacay xilligaasi annagoo isticmaalayna muuqaalo 3D ah oo hal abuur ah iyo warbixin ayna siiyeen dadkii ka badbaaday weerarka waxa aanu idinla wadaagi doonaa faahfaahin buuxda sidii ay 15 January wax u dhaceen bilowgii weerarka ilaa jawaabtii degdega ahayd ee abaabulneed ee ciidamada ammaanku ku badbaadiyeen boqolaalka qof xagga hore ayaynu tegaynaa halkan waa ammaan halkani waa dhismaha 14 Riverside waa dhismaha bariga Afrika ugu horumarsan bartamaha waxa ku yaala hoteelka Dusa 2 oo ay ku xiran yihiin muqaaxiyo bangiyo iyo xafiisyo casri ahi waa 3:28 daqiiqo maalintii weerarka xadiiqada Secret Garden hoteelada cuntada dadkii waxa ay dhamaysteen qadadii nin ayaa soo socda telefoonkiisa gacanta ayuu cod dheer Sawaaxili ku hadlaya idinmee ayuu yiri in yar kadib uu isqarxiyay qaraxani waa wajigii koowaad ee weerarka xilliga afarin ayaa gaari ku yimid dhismaha dhinaca albaabka booliisku waxa ay sheegeen inay dableedu ka carartay baabuurkoodii kadib markii booliis ka dhawaa meesha ay rasaas ku rideen way sii socdeen 3 baabuur oo meesha yaalay ayay gubeen qaraxan labaad oo meel kale ka dhacay waxa ay ugu tala galeen inay khalkhal iyo jahwareer ku abuuraan dhar madow ayay xidhnaayeen qoryo ayay siteen iyo rasaas aad u badan maleeshiyadani way isa soo diyaariyeen 2 kooxood ayay u kala baxeen waxaanay u gudbeen xafiisyadii ugu horreeyey warkii weerarka ayaa fiday maleeshiyadu waxa ay koreen dabaqa sare ee xafiisyada iyagoo dadka sii tooganaya bambooyinna tuuraya laba waxay qabteen dhismaha dabadiisa meydka 5 qof ayaa laga soo saari doonaa hoteelka cuntada ee Secret Garden dadkii waxay ka yaaceen dhismayaashii waa qarax jahwareer saxan baqdin waa la isku yaacyaacay dadkii meesha joogay waxay caawinayaan dadkii dhaawacmay 10 daqiiqo kadib booliis badan ayaa goobta soo gaadhay
qaar waxa ay ka mid ahaayeen booliiska sida gaarka u tababaranaya Kenya. dad shacab ah oo qoryasita ayaa iyaguna hawsha dhinacooda ka qaatay. kooxihii caafimaadka ayaa bilaabay inay dadka daweeyaan oo ay daadgureeyaan. dableydii waxay gaadhay halkii shishe ee dhismaha. dadka badankoodu way ka yaaceen xafiisyadan, laakiin ugu yaraan 17 qof ayaa weli ku xaniban gudaha. dablaydu marba dabaq ayay fuulayaan iyaga oo sheeganaya inay yihiin xubno ka tirsan al-shabaab ka hor inta aanay 6 qof dilin. kadibna waxa ay u gudbeen hoteelka casriga ah ee Duuset. marti badan ayaa isku qarinaysa qolalkooda. waxaan maqlay rasaas badan iyo qaraxyo. furaashka ayaan hore u yara riixay. dhinaca bannaan ayaan isku qariyey. barkimooyin ayaan dusha iska saaray. cali armaajada ayay isku qariyey. qaar kuwa daahyada ayay isku qarinayeen. saacad iyo badh ayaannu sugnay. waxba maannu qaban karayn inaannu tukanno maahe. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. waa kuwii qaaday weerarkii lagu fuliyey suuqa Westgate ee laga dukaamaysto sannadkii 2013 oo ay ku dileen 67 qof. 4 maalmood ayaa weerarkaasi socday iyada oo jawaabta booliisku ay ahayd jaahwareer aan qorshaysnayn. laakiin weerarkan 14 Riverside dadka badankoodu waxaa laga soo badbaadiyey xafiisyada dhismaha. maleeshiyaadku waxay ku jireen hoteelka Duuset, midna waxa uu ku jiray xafiis ku yaala dhismaha. xabad ayaana socotay. dhismahan waxaan filayaa inuu leeyahay 5 xafiis. mid ayaan joogay oo ah daaradda dabaqa 7. hortayda ilaa 60 mitir waxaa joogay nin maan dareemin ilaa uu xabad igu soo riday. gabalkii ayaa dhacay. madaxa booliiska Kenya ayaa sheegay in 6 ka mid ah 7 dabaq ee hoteelka Duuset gacanta lagu hayo ammaan ay yihiin. booliiskii ayaa la hadlaya qaar ka mid ah dadka weli dhismaha ku xaniban. 11 oo 12 daqiiqo la dawladda ayaa sheegtay in gacanta lagu hayo dhismaha intii la weeraray oo dhan, laakiin hadalka dadkii gudaha ku jiray ayaa shaki abuuray. daqiiqado ka hor ayuu nalku damay, goobtuna mugdi ayay noqotay. kadibna waxaannu isniri iminka malaha cidna idinma imaanayso. laakiin rasaasii qaraxyo ayaa habeenkii dhacayay. dad badanina weli gudaha ayay ku xanibnaayeen. madow ayay ahayd, waxay sugayeen in la samata bixiyo. dad badan ayaa habeenkii soo baxsaday. booliiska ayaa noo xaqiijiyey in dagaalku habeenkii socday. ugu dambayntii dableyda waxaa la dilay 8 subaxnimo. 2 saacadood kadib madaxweynaha Kenya ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii dhammaaday. 700 oo qofna laga samata bixiyey dhismaha. su'aasha ay dad badan oo Kenyaan ahi haddaba isweydiinayaan iminka ma aha qaabka ay dawladdu ugu gurma doonto weeraro noocan oo kale ah, laakiin inay ka hortegi karaan ka hor inta aan la soo qaadin weerarada. maanta oo kale bil ka hor ayuu weerarkaasi ka dhacay Nairobi. markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. mas-uuliyiinta waddanka Turkiga ayaa amray in la xiro in ka badan 7,000 oo qof oo looga shakiyay in ay la leeyihiin xiriir wadaadka Mareykanka degan ee la yiraahdo Fethullah Gulen. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay inuu abaabulay afgambigii fashilmay ee la isku dayay 2016. in ka badan 77,000 oo qof ayaa xabsiga la dhigay oo dacwadooda socota ilaa afgambigaasi markii uu dhacay. 17 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay hotel ku yaala magaalada Delhi, caasimadda waddanka India. gabi ahaanba qaybta kore ee dabaqa oo 5 ahaa ayaa uu qabsaday holac weyn. wararku waxay sheegayaan in 2 ka mid ah dadka wax ku noqday ay ku jiraan haweeney iyo ilmo yar, kuwaasi oo dhintay markii ay ka soo dhaceen dhismaha. dabka hadda waa la damiyey, waxaana la sheegayaa in baaritaan lagu hayo sababta keentay. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ayaa sheegay in ay dhiirigeliyeen wax uu ugu yeeray taageerada xooggan ee geedi socodka nabadda Afghanistan ay siiyeen midowga Yurub iyo NATO. waxa uu ku sugnaa magaalada Brussels oo uu kula xaajoonayay horumarka laga samaynayo wada hadalka Mareykanka iyo Taliban. shalayna waxa ku simaa xogayaha gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Patrick Shanahan uu la kulmay dowladda Afghanistan isagoo booqasho aan hore loo shaacin ku tagay magaalada Kabul. madaxweynaha waddanka Venezuela ee cadaadisku soo wajahay dhawaanahan ayaa waxa uu ku tilmaamay
madaxweyne Trump in uu la mid yahay madaxa ururka xagjirka ah ee la yiraahdo Ku Klux Klan waxaana uu sheegay in aqalka cad ee Mareykanka ay xukumaan dad necab oo cunsuri ku ah dadkiisa waxaana uu sheegay inaanay doonaynin dad aan cadaan ahayn sidoo kale waxay doonayaan buu yiri in isaga xilka ay ka qaadaan madaxweyne Maduro waliba uu diidan yahay in dalkiisa ay jiraan dhibaatooyin oo gargaar ay u baahan yihiin dadkiisa waraysi gaar ah oo BBC-da uu siiyay ayaa waxa lagu weydiiyay Venezuela inay awood u leedahay in Mareykanka iska dhiciso haddii Mareykanku uu ku soo duulo waxaana uu yiri no nos dejaría otra alternativa. noomay bannayn wax kale oo aanu qabanno waxaanu yeeli annagoo ka xanuunsan inaannu daafacno xaqa dalkaygu u leeyahay inuu jiro waxaan rajaynayaa fikirka dadku inuu raaco dhinaca nabadgelyada oo la arko sharaftii dadka Venezuela xaq baan u leenahay inaan ka doodno mushkiladahayaga nabadgelyada cidina sooma faragelin karto Venezuela cidina waxaan rajaynayaa kuwa xagjirka ee jooga aqalka cad ee Mareykanka in awoodda fikradda caalamku ay ka adkaato taa ayaan aaminsanahay waxaan ahay qof waxaan ahay Kristaan hadii jeer waxaan weydiisan jiray Ilaahay inuu arrimaha noo furfuro oo uu nabadbaadiyo taa ayaan rajaynayaa nabadgelyo inaan ku gaadhno madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro oo warramay BBC-da mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale aan idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa 4 toddobaad kadib weerarkii Nairobi ee 22 qof lagu dilay BBC-du waxa ay samaysay muuqaal lagu jilayo sidii wax u dhaceen weerarkaasi 19 saac qaatay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu yahay nin xag jir ah oo cadaan ah waraysi gaar ah oo BBC-da uu siiyay ayuu ku sheegay arintaasi dalka Mareykanka xisbiga dimuqraadiga iyo midka muxaafidka ayaa waxa ay gaareen heshiis lagu maalgelinayo amniga xuduudaha heshiiskani waxa uu yahay mid markaasi ay tahay in aqalka Congress-ka uu ansixiyo waxaana laga yaabaa inuu horseedo inaysan dawladdu aysan dib u joojin shaqadeeda heshiiskii hore loogu jiray waxa uu soo gabagaboobay jimcihii laakiin hore ayaa marar badan dib loogu dhigay wada hadallada ku aadan dib u celinta dadkaan sharciga ahayn iyo in la maalgeliyo darbiga uu madaxweyne Trump uu doonayo inuu dhiso xadka koonfurta Mareykanka uu kala wadaago wadanka Mexico warka heshiiska ayaa yimid goor uu madaxweyne Trump uu khudbad ka jeedinayo oo la siyaasadeed oo ka dhacay El Paso oo u dhow xadka gobolka Texas ee wadanka Mareykanka waxaana uu yiri waa inaan idiin sheegaa waxaan korayay masraxa waxay ugu yiraahdeen horumar baa lala gaaray guddida si aan mar kale idinku sheego gidaarkii waan dhisayaa si kastaba ha dhacdee waxay ugu yidhaahdeen horumar ayaa la gaadhay biyaada waxaa soo food saaray dhibaatooyin kala duwan siyaasiyiinta iyaguna waxa ay ku guuldaraysanayaan in ay si dhaba wax uga qabtaan xaaladda jirta waa sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen saynis yahano ka tirsan macadka la yidhaahdo Institute Public Policy oo ku yaala wadankan UK waxa warbixintu ay ka digaysaa in arrintani ay xiriir la leedahay isbeddelka cimilada laakiin waxay sheegaysaa in markaasi lagu hayo tiro weyn oo badan oo cayayaanka kamida waxaana warbixinta ay soo bandhigtay in sanadkii 2015 fatahaada daafaha caalamka ay sare u kaceen 5% isla xilligaasi waxa warbixintu ay sheegtay in kulka aadka u daran uu isna sare u kacay 20% sidoo kale gubashada kaymaha waxay kor u kacday 7 jibaar waxaana jirtay in ka badan in ay dhacday markii dabku ka dhacay wadankaasi Mareykanka waxaana jiray in cilmi baaris weyn oo caalami ah taasi ay ka digtay in cayayaanka daafaha dunida uu suuli doono 100 sano gudahood sabab la xiriira bini aadamka Dr. Pasi Sifran waxa uu ka mid yahay khubarada cayayaanka ee jaamacadda Helsinki sidan ayuuna BBC-da u sheegay
aalaaba kuma sii socon karno inaan sidan u sii noolaano hadda dabciga ayaa inoo sheegaya si naxariis leh waa inaan beddelno qaabka ay nolosheennu tahay cayayaanada waxay haddaba door muhiima u yihiin wax soo saarka dhulka 100 milyan oo sano waa bacrimiyaasha muhiimka ah beecadooduna waxaa markaasi ay halis gelinayaan wax soo saarka beeraha iyo waliba sumaynta badashada dhulbeereedka iyo isbeddelka cimilada ayaana arrintan loo aaneynaya Aisha Afrax ayaa ka waramaysa waa kuwa ugu yar dhulkan hawl muhiim ah ayayna u joogaan laakiin isbeddelkan dhulka u horseedayna waxay halis gelisay jiritaanka cayayaanka waa sida ay sheegeen saynisyahanada oo muddo 13 sano ah baaritaan ku sameeyay 10 nooc ka mid ah cayayaanka caalamka oo dhan waxay soo shacbixisay in noolahan uu hadda sii baaba'ayo tiradiisuna ay aad hoos ugu dhacday guud ahaan 40% cayayaanka dunida way sii dhamaanayaan sida kuwa ugu dhow bani'aadamka 49% ayay doorshaanta baaba'day gaaraabadiinka 37% ayuu dhamaaday iyo balanbaalista oo 53% baaba'day haddii ay dhamaadaan waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosheena sida ay sheegayaan saynisyahanada in badan oo ka mid ah kaarboonka hawada oo lala xiriirinayo isbeddelka cimilada dunida ayaa ciidda ku kaadsan taasi waxaa sii gudbiya cayayaanka cuntadeena dhulka ayaa lagu beeraa cuntadeena iyaga ayaa bacrimiya tallaabo kastoo aan qaadno oo cayayaanka la xiriirta waa shaqada muhiimka ah ee inoo hayaan iyaga la'aantood ma awoodi doonno inaan cunto soo saarno laakiin intaan xasharaadka ku tiirsannahay taasoo ku xiran dhaqdhaqaaqeena iyo cuntadeena haddana waxaa jirto ficil la sii baabi'inaya xayawaanadan waxaa jira 3 shay oo muhiim ah oo ay cilmi baaristan daaha ka rogtay kuwaasoo halis ku ah nolosha cayayaanka waxay kala yihiin isbeddelka cimilada cayayaanada guurguura iyo midda muhiimka ah sidaan dhulka u isticmaalno sida sare u kaca dhulbeereedka daafaha caalamka wuxuu dabciga noqday dhulbeereed iyo magaaleyn cilmi baarayaashu waxay sheegeen in baaxadda sumaynta cayayaanka ay sabab weyn u tahay baaba'a laakiin dadka soo dhaweeyay waxay ku caawin karaan in jardiimada ay ka dhigaan kuwa u wanaagsan xasharaadka waxay saynisyahanada sheegayaan inay tahay in isbeddel lagu sameeyo qaabka cunto soo saaridda si loo badbaadiyo cayayaanka ugu muhiimsan ee sii dhammaanaya bal markana haddii aynu eegno qaybtii ciyaaraha ee caawa isreebreebka horyaalka qaaradda Yurub ayaa bilowday lugtiisii koowaad Manchester United ayaa waxay is arkayaan kooxda PSG ee Faransiiska Manchester United lagama badin 11 ciyaarood ee ugu dambeeyay ilaa markii tababaraha cusub uu la wareegay xilkooda PSG waxay ciyaari doonaan iyadoo ay ka maqan yihiin 3 xidig oo kala ah Neymar, Cavani iyo Munir waxaana markaasi ku wada maqan yihiin dhaawac dhinaca kalena Roma ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda la yiraahdo Porto xagga tenniskana ciyaaryahanada lambarka koowaad ku jirta Naomi Osaka ayaa waxa ay tababaraheedii kala tageen Sasha Bechin la yiraahdo kadib 17 maalmood markii ay ku guuleysatay tartanka Australian Open wax sabab laguma sheegin waxa ay u kala tageen Bechin waxa uu ka caawiyay gabadhan Japanese-ka inay ku guuleysto koobab waaweyn muddadii sanadka ahayd ee uu tababaraha u ahaa tartankii baratanka fardaha waxaa dib loo bilaabayaa Arbacada soo socota kadib markii 6 maalmood la joojiyay oo loo xiray goobihii lagu tartansiin jiray xeryahan lagu tartansiinaya fardaha ayaa la xiray kadib markii uu fardaha ku dhacay durayga loo yaqaan equine flu caabuqan inta badan ma ahan mid nafleeda khatar ku ah laakiin waxa uu xadidayaa awoodda ay farduhu u leeyihiin in ay tartamo ay ka qayb qaataan amaba ay ka qayb geli karaan waa waqtiga wadanka lagu soo noqon lahaa waa waqtigii wadanka lagu soo noqon lahaa taasi waa fariin ay dawladda wadanka Ghana u dirayso cid walba oo wadankaasi ka tirsan oo Afrika ka soo jeeda oo ku sugan meelaha ka baxsan dalkaasi ee dunida meeshii ay doontoba ha joogtee waxay 2019 ay ku magacaabeen hadaba dawladdu ku magacaawday sanadkii dib u soo noqoshada ama dib loo noqonaya waxay doonaysaa dawladda Ghana in dadka madow ay ku dhiirigeliso in Ghana ay tagaan oo ay ku noolaadaan kana shaqeystaan Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa warbixintan ku eegaya
300 oo sannadood qalcadahan ku yaala galbeedka Afrika xeebahoodu waxay u ahaayeen meelo la geeyo dadka la doonayo in la adoonsado oo la dhoofiyo qoysaska waa la kala qaybiyay waxaana lagu khasbay in ay shaqeeyaan oo ay nolol samaystaan ka fog guryahooda dawladda Ghana waxay u baaqaysaa dadka ay ka mid yihiin Sikli oo inay ku soo laabtaan wadamadii awoowayaashay joogeen waxay ka soo guurtay wadanka Mareykanka iyadoo la socotay qoyskeeda 2 sannadood ka hor hadda waxay degan tahay Accra waxaa jira waxyaabo qaldan oo laga aaminsan yahay nolosha Afrika guud ahaan gaar ahaan Ghana waxayna ila tahay in ay dadku soo buuqdaan si waxyaabaha qaldan loo joojiyo oo ay u soo arkaan sida ay tahay Ghana wadankii ugu horeeyay ee Afrika ee qaada sharcigan loo ogolaanayo dadka Afrikaanka ee dibadda ku nool inay xaq u leeyihiin inay dalka ku soo laabtaan dalkaasi waxa uu meelmariyay sharci gaar 2001 loo ogolaanayo dadka Afrikaanka ee dibadda ku nool inay ku noolaan karaan wadanka Ghana iyaga oo la sheegay inaanay u baahnayn visa talaabadan ugu dambeysay ee macnaheedu ay tahay gurigaaga kaarayo waxa uu yahay in la xuso 400 oo sannadood dadkii ugu horeeyay ee la adoonsanayay ee degadaha Ghana ka dhoofay aan dib u soo laaban fideoguna waxa hore u marinayaa sanadkii soo noqoshada dalka Ghana oo lagu tilmaamay inuu yahay mid wanaagsan xaqiiq ahaan laakiin waxa ay muujinaysaa dadka soo laabanaya waxa ay ku soo laaban doonaan arrinka qiirada leh waa in qof kasta uu ii eg yahay waxaan dareemayaa inaan weligay bahalkan joogay Ghana muddo dheer waxaa loo aqoonsanaa inay tahay muftaaxa dadka Afrika dibadda kaga nool soo noqonaya waa mid ka mid ah dhaqaalaha adduunka xoogga u kordhaya waxaa lagu tilmaamaa hawadeedu inay wanaagsan tahay meelo lagu dabaasho oo badaha inay leedahay suuqaaqeeduna ay camiran yihiin dad badan ayaa waxa ay rajeynayaan tan inay ku filaato oo ay qanciso qoysaska Afrikaanka ee ku nool Yurub ama Amerika ama Caribbeanku inay soo noqon karaan Don't forget where you are from. hilmaamin meesha aad ka soo jeedo ugu dambeynna waxaad nala wadaagtaan qalabkan beeraha lagu jiro ee barafkana lagu dulwadi karo hawshu way fududahay qalabkaaga beerta u bedel gaari yar kadibna bal kuwad harooyinka barafka ee wadanka Finland sidii markaasi adigoo tartan ku jiro oo kale laakiin sidaasi uma sahlana wax laga naxo motorkani waxa uu shaqeyn karaa 12 saacadood oo isxiga iyadoo oo aanu jirayn wax caleen ama doog ah oo sidaasi barafka loogu dhex ordayo balan dibadda xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweynaa 4 toddobaad kadib weerarkii Nairobi ee 22 qof lagu dilay BBC-da ayaa samaysay muuqaal lagu jilayo sidii ay wax u dhaceen weerarkaasi 19 saacadood socday madaxweyne Nicolas Maduro waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inuu yahay nin xaq jira oo cadaana waxaana uu ku sheegay arrintaasi waraysi oo hogaamiyaha Venezuela siiyay BBC-da xusuusno wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad kala socon kartaa bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiin waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan